kalamaanay ilmihii aragood iyo orahdooda la waayo waalidkoodu uu ooyo uurku oo gubanayay xasana is ag taagay arrin baan maqlayaahe ogaalayaa igu dhaama war aniga abaarkaayay xasan oo is ag taagay horta may idiliin warnamiya waalkeeda tolkiya la ere weelkeeda dhaliya la ere waalidiintii bariyaa u wareersanaayeen awlaadiyo wal helaya la eri war madaxweynihii hore farmaajo xilligii kaambeynka lagu guda jiray inta hadda xasan sameeyey hadduu samayn lahaa madaxweynenimadiisu bannaankay oolay lahayd sow maaha aga war hadagonahay gaboosow maxaad saa u dhihi haddii uu farmaajo madaxweyne noqon lahaa maxamse ra'iisul wasaare loo magacaabi lahaa waran wali kale erafaday lankii obooga 40 sano duugna lagnaariskiingu kooye andorontowisuma ooysuma waranba waxaan isleeyahay haddaan igraan tahliil la weyn lahayn madaxweynu noqon lahaa arankoolomba waxaan isleeyahay hadduu si muddo kororsi samayn lahayn madaxweyne noqon lahay war kalamaanay inaa qaran dumis tihiin horaa loo ogaado madaxda xanteedu dabeecaday idiin ahayd laakiin midda xafiiska joogtaa xaga jirteene maxaad akhyaartii tagtay ka rabtiin warnamada warka ma sugtaan waana badisaane madaxweynuhu codsigii waalidku aqbalay waana mahadseene wiilashiina waa soo wadaa waaye lala'a waayahe balkeen waa kane balho aan maqli jiray warawood la janne eega waalidiintii may faraxsan yihiin war qorona odayaal waalidiintii ka mida waxay dheen waagii aan yarayn iyo haddoo gadh nagu weegaarmay abba weedhan weedh nooga ron weli ma noo yeedhay hooyooyinkiina waxay dhaheen warsan iyo weedhsan noo soo wacey warsan iyo weedhsan noo soo wacey aryaadhaha ilmihiina waxay yidhaheen dad wareersanaa jirayo waa u soo baryaadnahayhe dad wareersanaa jirayo waa u soo baryaadnahayhe wararta carruurta adduunka meeshay ka joogaan ma ogaadeen war CBB waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh waakii dhahaye ilmihii waa la gatay maanta ma ogaadeen inay askar qaranka loo soo tababaran yihiin war CBB isan sheegasan dad talafay hadii ayin geegi xasan sheekh saasaraayi iyo farmaajo awlaadada dad tus erne la fadaay war madayo waa falan tahay CBB iyo farmaajo dhexdooda kuma qaado aryaadhaha war ma haysiina shala mugow madaxweyne xasan sheekh u tagay dhallinyaradii Eritrea ku xareesneed waxaa la yiri qaar sheekaysaha iyo waxay dhaheen bariga madaxweynihii hore xasan sheekhaana soo booqday sababtoo ah dalka in doorasho ka dhacdo isbedel yimidba ma oga oo cabdillow weli in farmaajo madaxweyne yahay miyay u haysteen war taasi waxaa ka daranaa la yidhi qaar maskaxiyan u diyaarsanaay markii hore tababarka loo diraayeyba ayaa waxay dhaheenaa la yidhi xasan sheekh soo mucaaradkii qaran dumiska ahay kama tirsanayn muxuu naga soo doonay sideese dowladda Eritrea noogu ogolaatay mucaarad qaran dumis ah noo khudbadeeyo war daran moog baa tahay madaxweyne iska daayo qof Soomaaliya oo ay arkaan baa farxadooda ahayd aga oo hadda waxaad leedahay dhaxan dhuxu way isku wareereen war xitaa habayti qaydi liqaa'i kama weelka isku qaldan war horta garoonkii la soo bandhigayo madaxweynuhu askarta ugu tagay bannaan bacad oo buura dhaxdooda oo ahay baadiye cidlaa inuu ku yeelno waa la sheegay guri dhaxanta iyo qorraxda laga galaana meesha kama muuqan marka wixii dib soo marayba waxa la yiri oorkii heeriya ku gubta wuxuu geel ugu sheekeeyo waa yaqaan warmaya war ma haysiine ciidanku inta madaxweynuhu shala booqdo kaliya ma ahayn maanta la qaar kale oo xira kala ku xireysan oo la kulmay marka ciidanku waa 5 kun la yiri war waa soo socdaa degdeginina war iyo dhamaantiis abwaanguura wuxuu yiri wiilashii lagu qaaday qadargeynta iyo beenta dabadeedna qiyaano asmara loogu qaloocsho qarankoodu shirqoolay warar aan qurxanayn oo qalbigeena dhibayo cid qiyaasi kartaana jirin bay ka qoreen bulshadii la qandhootiyo waalidkood ha qanceene qabarkooda u keen wardooyoonay dhamaantiis dhalinyartii waa soo socdaan koowdhe warna way sidaan labadhe samir yeesha weligiin Soomaalay ha fududaan war maanta waalidiintii ubadkoodu maqnaa ayagoo faraxsanayay banaanbax dhigeen weligayna taariikhda waa markii iigu horeysay ee aan daawado Soomaali madaxweynahooda u ducaynaysa oo wax wanaagsan buu sameeyay leh war maanta waalidiintii banaanbaxay hooyo kamid ahayd waxay tiri anigu xalay wiilkaygiyaan arkay oo 3 sano nool iyo geeri aan midna ku ogeyn iigamana duwana caawa inuu guriga ila joogo war waalidiintu waxa kale oo dhaheen madaxweynuhu ilmaheena waana tusay inuu noo keenana waa ka sii codsanaynaa war waalidan laga weynaane ilmo ma ahane waa askar wadanka loo tababaray war dhalinyarada 6 bilood waa la tababarayay 2 sano iyo barna lama yaqaan war Eritrea mabaadideeda ma naqaane askarta waxay bartay waa in laga hubiyaa aryaadhaha samigay Cabdullana waxa uu yiri oo dhibaata hora u dhacda la dhaayayo
dhammaad maare dhibaataa hora u dhacda la dhayaayo dhammaad maare waraawowod lugub waxaan ina weydiiyey taliyaha militariga jenaraal odowa hadda ka hor wuxuu yidhi annagu ma ogin ciidan militari loo tababarayo oo alatariya loo qaaday talow eegga jenaraalku muxuu dhihi qoranow eegga ana amray buu dhihi militariga in nabad suguud horta miyuu amray war ima qusaysaa qaranka oday uu ahaayo ciidankan qoray buu dhihi war ha sheegin iyo shub midkoodna waxba kama ogayn sow maaha adigu ha sheegin haddeer war maxay sheegayaan kuwaas golihii wasiirada iyo baarlamaanka aan ogeyne war waxa dhan ood ka hadleedaan taliya shibaa ka amar weynaay horta anigu waxaan hubaa inuu jiray uun taliya lama yaqaan war wasiir dubba intuusan dadkiisa dhinac ka raacin wuxuu yidhi askartaani waa sir qaran hooyo ooyeysana loo sheegi maayo haa ikraan saasaa loo qarshay miya war khiyaano garan walgaryeeli leymi dheegnaysan waraawowod lugub ciidamada waddamada kale lagu tababaro lama qariye maxaa kuwa alatariya sir qaran ka dhigay